وماسية ورينا أحمد ديريع التري داود الكسر دوادا حبنتي ciyaaraha aan ku soo qaadano ciyaarihii ugu dambeeyay ee laga ciyaaro horyaalada qaaradda Yurub sida Isbaanishka, Ingiriiska iyo Talyaaniga xubintan ciyaaraha oo inii soo jeediyo anigoo Abdirahman Jama waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay xalay laga ciyaaray horyaalada qaaradda Yurub waxa xalay ciyaar aad u xiiso badan ay dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Celta Vigo. Real Madrid ayaa gaadhay guusheedii labaad ee xilli ciyaareedka kadib markii ay 2-1 kaga gudbeen kooxda Celta Vigo oo marti ku ahayd garoonka Santiago Bernabeu iyadoo uga mahad celinayso goolal ay kala dhaliyeen Morata iyo Toni Kroos. Tababare Zidane ayaa hal bedel ku sameeyay shaxdiisii isbuucii hore iyadoo Madrid uu ku soo laabtay shaxda kooxdaasi. waxaa sidoo kale mar kale fursad helay daayirka Marco Asensio iyadoo Morata lagu soo bilaabay xilli ay maqan yihiin Benzema iyo Ronaldo oo dhaawac ka soo kabsanaya qaybtii hore ciyaarta waxay jahwareer u ahayd kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid kuwaas oo awoodi waayay inay shabaqa soo taabtaan Celta Vigo. Gareth Bale ayaa isna fursado fiican ka khasaariyay kooxdiisa. Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay daqiiqadii 60aad markii uu Asensio isku dayay inuu kubad ka dulqaado goolhayaha Celta Vigo kaasoo beeniyay. nasiib wanaag Morata ayaa boos fiican u taagnaa inuu kubadda shabaqa dhex dhigo uu hoggaanka ugu dhiibo Real Madrid kaasi oo ka faa'iideeyay fursadaas xagana ku dhaliyay goolkaasi. Spanish Modric with virtually every clearance. Here's a big chance for the youngster Asensio, who doesn't take it, but he's shown exactly how to do it by Alvaro Morata. It's taken them almost an hour to crack the code. Celta Vigo ayaa ku soo laabatay ciyaarta daqiiqadii 67aad iyadoo gool uu dhaliyay Orlenia. ciyaartu markaasi waxay noqotay 1-1. Wariye with some space and a brilliant goal. daqiiqado kadib Toni Kroos ayaa baas uu ka helay Lucas oo ciyaarta bedel ku soo galay waxaana uu kubad u si dhameystiran ugu laagay goolka iyadoo birta ku dhacday ka hor inta ayna shabaqa taaban. ciyaarta ayaa noqotay 2-1. Charges it down. Vasquez rolls the ball back. Kroos winds it up. Perfectly placed, perfectly timed. ciyaarta ayaana ku soo idlaatay natiijadaas iyadoo Real Madrid ay guul ku gaartay Bernabeu kulankii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkayga waxaana 6 dhibcood ka wataan 2 kulan oo ay ciyaareen La Liga. ciyaaraha Ingiriiska ciyaartii ugu xiisaha badneyd ee xalay dhex martay Manchester United iyo Hull City ciyaartan oo ku soo dhamaatay daqiiqadii ugu dambeeyay 1-1 ciyaartan oo faahfaahsan aan u taloono goolkii uu dhaliyay waqtigii dhimashada ciyaaryahanka Marco Rashford ayaa ka saaciday in Manchester United ka talaabsato Hull City iyadoo marti loogu ahaa garoonkeega waxaana kooxda Mourinho ay gaartay guusheedii saddexaad oo isku xigta xilli ciyaareedka Premier League. tababare Mourinho ayaana waxba ka bedelin kulankiisii isbuucii hore isagoo mar kale ku soo bilaabay xidiga dunida ugu qaalisan ee Paul Pogba kaasoo ciyaaray kulankiisii labaad ee xilli ciyaareedka Premier League halka uu Ibrahimovic mar kale uu afka hore uu ku soo bilaabay. qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu soo kala nastay barbaro gool la'aan ah iyadoo garoonka uu roob badan ka daayay kooxda martida ahayd Red Devils ayaana gacanta sare lahayd ciyaarta iyadoo ku dhawaaqday inay shabaqa soo taabato dhowr jeer. qaybtii labaad waxay ahayd si isku mid ah iyadoo ciyaarta ay hal dhinac ka u socotay. Man United ayaana gool ka raadinaysay Hull City goolka uu dhaliyay Rashford waqtigii dhimashada ayay whatever the scoreline. Rooney gets away from El Mohammadi and he slides with it. This kid's got something special. Manchester United ku badisay iyadoo wali sii wadata rikoodhkeeda guulaha ee xilli ciyaareedka cusub waxayna haatan leedahay 9 dhibcood 3 kulan oo ciyaartay. xagga Talyaaniga waxa wada ciyaaray kooxaha Napoli iyo AC Milan oo iyaguna ku wada ciyaaray dalka Talyaaniga. waxa xalay ciyaar xiiso badan oo Serie A Talyaaniga ka tirsan ay dhex martay kooxaha Napoli iyo AC Milan. Napoli ayaa gacanta sare haysatay kulan waale ah oo ay la ciyaareen kooxda AC Milan iyadoo 4-2 kaga badisay kooxda AC Milan oo 9 ciyaaryahan ahayd. waa guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka Serie A ay gaadho kooxda Napoli kadib barbari ay galeen usbuucii hore halka Milan ay leedahay 3 dhibcood kadib 2 kulan oo ciyaareen. del Milan 99. It's un niño. Sí, prácticamente sí.
Lanza desde la esquina Callejón con Rosca Mili. Van a cambiar algo en la segunda parte de este partido. Ahí va Niang, desborda Isaibe del centro. Muerto como ocurriera en el primer gol de Milik para que le empuje. Algo. daawadayaal intaasi waxaa ku dhan xubintii ciyaaraha oo inii soo jeedinaya anigoo Abdirahman Jamaye xubintan xubin la mid ah intaanu ku kulmi doono waa aniga iyo bahda Bulsha TV oo isku duuban balse intaanu ka bixinay nigu celiyo wariyahana Axmed Diriye Ciltire